kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararka maanta ee telefishinka SBTV qodobada wararka maanta ugu dooranaya waxaa ka mid ah galmudug oo magacowday guddi ka hortaga COVID-19 oo saameyn ballaaran ku yeeshay dalka oo dhan ciidamada ammaanka dalka Tunisia oo qabtay tahriibiyaal gaariga 100 qof kuwaasi oo qorsheynayay in ay u safraan dalka Talyaaniga waxootiga reer Itoobiya ee ku sugan Khartoum oo sheegay in ay dhibaato ku qabaan al-shabaab oo degmada Jilib oo kuna kala duwan ka fuliyay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Buuba oo sheegay in Somaliland iyo Soomaaliya aysan kala go'i karin madaxweyne Farmaajo oo loo diiday in uu dagaalgeliyo ciidamada danab qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan u diyaar garoowa waa maalinimo axadda taariikhdu ay ku beegantahay 28 February 2021 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhammaystiran wargeyska Washington Post ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa qoray in madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Soomaaliya Farmaajo ku guuldareystay in ciidamada danab u soo daabulo Muqdisho si uu ugu adeegsado ka hortagga banaanbaxyada mucaaradka sarkaal ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab ayaa wargeyska u sheegay in taliyahooda ugu sareeya ee ku codsaday Farmaajo inuu qaar ka mid ah ciidamadooda u soo daabulo Muqdisho si ay uga hortagaan banaanbaxyada waxa uu sheegay sarkaalkan oo magaciisa sababa ammaan u qariyay in madaxweyne Farmaajo laga diiday codsiga ciidamada danab uu doonayay in Muqdisho la keeno mana sheegin sarkaalkan cidda diiday in danab la keeno wargeyska Washington Post ayaa qoray in madaxweyne Farmaajo fashilinta banaanbaxyadii mucaaradka ka abaabuleen Muqdisho uu adeegsaday ciidamada gaarka ah ee tababareen Turkiga ee Harmacad iyo Gorgor dowladda Mareykanka oo tababarta ciidamada danab sidoo kale gacanta ku haysa ayaan ogolayn in ciidamadaasi loo adeegsado wax ka baxsan howlgalka gaarka ah ee al-shabaab dowladda Soomaaliya ayaa joojinta banaanbaxyo waaweyn ay u abaabuleen musharaxiinta u adeegsatay ciidamada sida gaarka u tababaran Harmacad iyo Gorgor kuwa oo weerar ku qaaday musharaxiinta madaxweynaha qaarkood Allah u naxariista ugaaskii beesha xawaadle ugaas Xasan ugaas Maxamed ayaa lagu aasay duleedka magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan ugaaska ayaa maalmo ka hor magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya uga geeriyooday wadna xanuun ka soo booday sida ay xaqiijiyeen ehelada marxuumka arinta uga hadalhaynta badan ayaa ah dhaqanka beesha xawaadle oo ah in marka uu ugaasku ka dhinto uu xilkiisa si ku meel gaar ah u sii hayo ugaaska beesha ceer taasoo ah dhaqan soo jireen ah oo ay leedahay beesha xawaadle dhaqankan ka dhaxeeya beelaha ceer iyo xawaadle ayaa waxay warbaahinta BBC-da ka wareysatay Cali Daahir Xirow oo ka mid ah dadka ugu dhow marxuum ugaas Xasan wax badana ka yaqaana dhaqankan Cali Daahir Xirow ayaa sheegay in dhaqankan uu soo bilowday 12 bishii 12 sanadkii 2004 markii uu dhintay Allah u naxariistay ugaaska beesha ceer ugaas Maxamed ugaas Nuur wuxuu sheegay in maalintaas wixii ka dambeeyay ugaaska beesha xawaadle ugaas Cabdiraxmaan ugaas Khaliif ugaas Rooble oo ahaa ugaaskii ugu horeeyay ee ka qayb galo aaska ugaas Maxamed uu halkaas kaga dhawaaqay inuu si ahaan doono ugaaska ku meel gaarka ah ee ceer inta lagu duubayo ugaaska cusub Cali Daahir ayaa sheegay in ugaaska beesha kale uu sii hayn doono xilka ugaasnimada inta ay asayda ka degayso xaaska uu ka dhintay ugaaska beesha kale wuxuuna sheegay inuu xilkaasi hayn doono muddo asayda oo ah 4 bil iyo 15 cisho wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya Dr. Ismaaciil Hurre Buuba ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed inaysan sinaba u kala go'i karin Ismaaciil Hurre ayaa waraysi u bixiyay ku sheegay in uu aaminsan yahay ummadda Soomaaliyeed ee ku kala nool geeska Afrika in aysan kala maarmayn qofkii igu nacaya iyo kii ka naxayaba Soomaaliya ma kala go'i karto haddii aynu doonayno nolol tan dhaanta in aan ku noolaano waa in la midooba ayuu yiri Ismaaciil Hurre Buuba isagoo sii hadlayay ayuu muujiyay in masiirka Soomaalida geeska Afrika in ay yeelan karaan maamulo balse uusan guureyn jinsiga Soomaalinimada Buuba ayaa sanadihii dambe ku noolaa magaalada Hargeysa wuxuuna xubin ka yahay xisbiga mucaaradka ah ee wadani wararka ka imaanaya degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyaadka al-shabaab ee gacanta ku haya deegaankaas ay shalay galab fagaare ku yaala degmada Jilib ay xukuno
kula fuliyeen 3 qof oo isugu jiray rag iyo dumar, kuwaas oo ay ku kala eedeeyeen gobol dhaaf iyo xatooyo. Qofkii ugu horreeyay ee lagu cadeeyay xatooyo oo lagu magacaabo Sidi Muxudiin Cabdi ayaa laga jaray gacantiisa midig. Sidoo kale Cilmi Khaliif Maxamed oo loo haysto kufsi ayaa laga qaaday xoolo iyadoo lagu fuliyay xukun karbaash ah, halka Caashe Cabdulqaadir Cumar oo loo haysto gogol dhaaf ay ka fuliyeen xukun jeedal ah. Nin sheegtay inuu yahay guddiga qaadiga maxkamadda Al-Shabaab ee degmada Jilib ayaa fagaare ay xukunada ku fuliso kooxdu ku dhex yaala Jilib ka akhriyay eedaha loo haysto iyo xukunada dadkaasi. Sidoo kale fagaaraha ay kooxdu xukunada ka fuliso ee ku dhex yaala Jilib ayay ugu magacdareen hogaamiyihii laga dilay ee Aadan Xanshi Ceerow oo ahaa ninkii aasaasay Al-Shabaab. Qaar ka mid ah qaxootiga ku sugan dalka Suudaan ee ka soo barakacay colaadii u dhaxaysay Tigray iyo weliba Itoobiya ayaa waxa ay haatan tacdiye kala kulmayaan waddankaasi. Dadkaasi qaxootiga ah waxay sheegeen dhibaatada iyo cadaadiska inuu ka sii batay wixii ka dambeeyey markii ay bilowdeen dagaalada xuduudda ee labada dal u dhexeeya, taasina ay ka abuurtay welwel iyo cabsi aad u badan. Waxayna intaasi ku dareen xerada qaxootiga ee UNHCR muddo 2 bilood ah markii ay deganaayeen loo wareejiyo halka lagu gubo qashinka magaalada Khartoum oo aan nolosha ku habbooneyn. Goobtaasi oo ay sheegeen in ay ku nool yihiin 700 oo qoys oo isugu jira qaxooti ka soo kala jeeda Itoobiya, Congo, Burundi, Eritrea iyo wadamada kale ee qaaradda Afrika ka tirsan. Dadkaasi qaxootiga ah waxaa kale oo ay warbaahinta u sheegeen dhibaatooyinka iyo xadgudubyada gudaha dalka Suudaan ku haysta inay si gaar ah u saameeyeen haweenka iyo carruurta. Dhibaatada ugu badan waxaa noo geysta booliiska xilliyada aan xerada ku soo baxno oo aan magaalada adeeg u raadsano, ayay tiri Kulani Bayani oo Khartoum qaxootinimo ku joogta warbaahinta BBC-da u warantay. Xaaladdu waxay ka sii dartay inta ay bilowdeen dagaalka xadka ee u dhexeeya Itoobiya iyo Suudaan wixii ka horreeyay. Sida aan hadda nahay waanu dhaanay, ayay tiri. Dhanka kale, markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka ayaa gaaray biyaha Suudaan. Markabka oo ah nooca gaaf wareega xeebaha ayaa looga talagalay inuu ilaaliyo bad cas. 10 sano ka hor ayaa markab Mareykanka laga leeyahay ugu dambeysay biyaha Suudaan. Markabkan Mareykanka ayaa doonaya inuu xoojiyo ciidamada badda ee Suudaan. Imaatinka Mareykanka ee Suudaan ayaa ku soo beegmaysa xilli Ruushka iyo Suudaan ay kala saxiixdeen heshiis bishii December ee sanadkii hore, kaas oo u ogolaanaya Moscow inay saldhig ku samaysato biyaha Suudaan. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Tunisia oo samaysay howlgal looga hortegayo falalka tahriibinta ayaa soo qabatay 87 qof kuwaas oo qorsheynayay inay u safraan dalka Talyaaniga. Wasaaradda ayaa sheegtay in ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkaas ku guuleysteen inay ka hortagaan falal sharci darro ah kuwaas oo qorshaysanaa inay tahriibiyaan dad badan. Bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in 45 qof oo ka mid ah dadka ka soo qabtay ay ahaayeen dhalashooyin kala duwan ee dalalka Afrikaanka ah, halka 8 qof ay yihiin muwaadiniin Tunisia u dhashay. Bayaanka ayaa intaasi ku daraya in dadka la soo qabtay ay ku jiraan dad aan weli la ogaanin halka ay ka soo jeedaan, waxaana ka socda baaritaan dheeraad ah. Ciidamada ilaalada badda ee dalka Tunisia ayaa sidoo kale qabtay doonyo dadka lagu tahriibiyo iyo lacago badan. Dadka tahriibiyaasha ah ee gaaray Tunisia 2020 waxaa lagu qiyaasay dad kor u dhaafaya 8,000 oo qof, kuwaas oo doonaya inay dalkaas uga sii gudbaan dalalka Yurub. Marxaladda soo laba kaclaynta xanuunka safmarka ah ee COVID-19 oo saameyn ballaaran ku yeeshay yeelatay dalka oo dhan ayaa toddobaad gudihiisa Galmudug laga diiwaangeliyey 13 kiis oo dhammaantood laga helay magaalada Samareeb ee caasimadda Galmudug. Welwelka laga qabo kororka tirada bukaanada uu soo ridanayo xanuunkan iyo xaaladaha dhabta ah ee ka jira xarumaha hore looga diyaariyey in ay qaabilaan dadka caawinta u baahan darteed ayaa fadhigan oo uu shir gudoomiyey kusimaha madaxweynaha Galmudug ahna gudoomiyaha baarlamaanka Dr. Maxamed Nuur Gacal
ayna ka qayb galeen wasaaradda caafimaadka, amniga, arrimaha gudaha, cadaaladda, maaliyadda, gaadiidka, awqaafta iyo diinta, shaqada iyo shaqaalaha iyo xubno kale oo uu ka mid yahay agaasimaha guud ee madaxtooyada Galmudug ayaa diiradda lagu saaray sidii loo sameyn lahaa. Dhammaan wasaaradaha fadhigan ka qayb galay ayaa laga dhageystay talooyin la xiriira tallaabooyinka la qaadayo ee hortabinta u leh howlaha ka hortagida iyo la tacaalidda soo laba kacalaynta xanuunka COVID-19. Wasiiru Dowlaha Caafimaadka Galmudug Axmed Mire Fataale oo ugu horeyn warbaahinta warbixin ka siiyey go'aanada shirkan ka soo baxay ayaa sheegay in la isku afgartay in dib loo furo dhammaan xarumihii karantiilka ee degmooyinka Galmudug. Gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa ugu dambeyn ku dhawaaqay guddi ka kooban 9 xubnood oo isugu jira wasaarado ay hormuud u tahay wasaaradda caafimaadka, kuwa oo diyaarin doona qorshayaasha la tacaalidda safmarka COVID-19. Intaas ayaan ku soo afmeerina wararka maanta telefishinka SB TV. Inta warkan kulmi doona waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.